madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud goob walba uu tago ama khudbad uu ka jeediyaba waxa uu leeyahay kuma rabo ayay leedahay hadaad kuma rabo ku dhaho adigana maxaad iga filaysaa kuma rabo waxa uu sheegay inuu raadinayo midnimada ummadda Soomaaliyeed wada jirka ummadda Soomaaliyeed waxa weeye ummadda Soomaaliyeed inay mid ahaato iyo dawlad iska dalka Soomaaliya ayuu sheegay inuu mar waliba uu raadinayo wayahay qofka bin aadamka kuma rabo hadaa tiraadid waxa kaliya aad ka fili kartid waxa aadna kuma rabo iyo kuma rabana waa wixii uu Ilaahay aad iyo aad uga digay anuu waa inaan ku qancaa sida aan rabo iyo sidaan wax u arko inaan la ila wada arkaynin oo dad si ka duwan u arka ay jiraan marmarka qaarkoodna laga yaabo sidaan anigu u arko sidaas inay ka fiican tahay ra'yi waa lagu kala duwanaa kana bin aadanaan nahay isku qalbi ma ahin isku aqoon ma ahin isku maxaan ku iraadaay khalfiyaad iyo baaga meeshan ka nimid isku mid ma aha waa kala ra'yi doonaa karnaa wayahay yaa diidan in wada hadal la galo yaa diidan in mid la ahaado yaa diidan in wada jir la ahaado yaa diidan in la dhameeyo khilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada puntland mar walba cod dheer bay ku sheegi doontaa wixii ka khaldan shuruucda dadka Soomaaliyeed heshiiska ku yahay haday tahay dastuur iyo haday tahay xeerarka kale ee dalku leeyahay waxay mar walba ballan qaadaysaa wixii heshiis lagu yahay wixii lagu kala arkiduun wayahana waxay diyaar u tahay inay ka doodo oo miiska wada hadalka mar walba ay fariisato iyadoo oo doodooda dhibanayso waxay ixtiraami doontaa ra'yiga wada jirka loo qaato waxay ixtiraami doontaa wixii sax ku abuurma wixii inta ka khaldan waxay puntland mar walba diyaar u tahay inaysan cid kale jajoobin laakiin ay danaheeda ay focus danaheeda ay ku fognaato hadii Ilaahay ka dhigo waxaa la yaab leh in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya isagoo loo soo bandhigay gogol nabadeed oo wada hadal ah oo lagu dhamaynayo khilaafka dawladda federaalka iyo Puntland kala dhaxeeya in uu saddex marba uu diiday oo uu yiri Saciid Dali lama fariisanayo maantana uu goobto tagaba ka qudbaynayo oo uu leeyahay kuma raba ileedahay dalkeena kuma raba in la yiraahdo macquul ma aha wala kala raadi duwanaan kara in la wada fariisto way waa in la wada hadlaa waa in aad qancisa waa in aad ku qanciya waa in waxaad haysa hadafkaada aad ii sheegtaa hadaa ku qancaan wada qaadana waa in la garama waa in dib u dhiska dalka Soomaaliya laga shaqeeyaa ayuu goob walba kaleeyahay run ahaantii in madaxweynuhu uu la hadlayo dad aan dhagalahayn oo indha lahayn oo aqli lahayn oo waxba lahayn oo qaab waxba la socon in la hadlayo moodaa waan dul istaagi doonaa soo dhawaada muuqaalka la saare aragtidnu waa muhiim oo ugu reeba qaybta commentiga aynu ku bilownay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud tan iyo markii la doorto dib loo doortay meel walba uu tago wuxuu leeyahay wardalkeenu sidan ma aha wardalkeenu sida hore ma aha wardalkeenu in sida hore lagu socdo ma aha wardalkeenu waa in midnimada laga shaqeeyo waa in wada jirka laga shaqeeyo kuma raba ay leedahay kuma raba hadaa isdhaxno dalkeenu meel kale ku dhacaya looma baahno waa kala raayo duwanaan karnaa waan kala aragti duwanaan karnaa waan kala aqoon badnaan karnaa waan kala aragti waxa weeye waa inaan isqancinaa oo wada fadhiisanaa ayuu leeyahay marba marka ka dambeysana dalkeenu meesha ku sii dhacaya wada aragtaan dalkeeni meeshu ku sii dhacaya ma cid ka qarsoon tahay baa jira waa maya nin isagu bariiskiisa ilaashanayo Xasan u shaqeeyo waa baab kale sababtoo ah ninka wuxuu ilaashanayaa bariiskiisa waxba kama gelin ninkan gaajaysan laakiin markan ka cabirno xaqiiqada dhabta iyo waaqica dalkeenu maanta uu ku jiro dhanka amniga dhanka horumarka dhanka wada jirka dhanka midnimada dhanka dawlad dhiska iyo waxa weeye hore u socodka dhanka siyaasadda markaan dhinac walba dalkeena maanta ka eegno meesha uu taagan yahay cid walba way ka dharagsan tahay marxaladda dalkeena uu ku jiro cid walba way ka dharagsan tahay meel maanta inoo fiican oo dhihi karno halkaas buu Xasan Sheekh Maxamuud kaga fiican yahay horay uga dhaqaaqay ma jiro waagii hore waxaan ugu habaleeynay dagaalkii khawaarijta lagu bilaabay runtii guulana waa laga keenay khasaare badanna waa keensaday dhibaato kalena waa ka dambeysayoo hubkii dadka sharci darrada ah ee shacabka loo qaybiyay ee dadka shacabka la siiyay ayaa meel walba qadal la isku hayo la isku leeyahay meel walba la isku leeyahay marka taasna marka dhibaatadaas baa ka dhalatay intii loo waabaliyay la guul baa keentay dhibaatadaas baa iyadana ay keentay oo ka dhalatay inta kale aan ka sheekayna haday noqoto dhankii sharciyada haday noqoto dhankii dawladnimada dib u dhiska haday noqoto dhankii siyaasadda iyo sidoo kale wada tashiga haday noqoto isku xidhkii maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka haday noqoto la dagaalanka naftirkeedii
وأيضا نفت كذا دبعتها كسر نقطة علينا هاي هدي نقطة دنكا أمني جود هدي نقطة لين أول بمدحوين وقف الشلمان مرة والبرا وحولتها جايكم مرة هداي ترادي هي ماشي الجيني سواد جرانيسان كمرة وح معقولة معها وكلا أركت دوانان كرنا وكلا سياسة دوانان كرنا وإن وضع فريسنا وإن وضع حضلنا هذا واي هاي هو يدي فدرالك وطها بناك تاجن نيكي هو قامين يجي وحولي هاي بوتلان ديار بيوتا إنه وضع حضر لك شعيد والبا بوتلان ديار بيوتا إنه وضع حضر له بوتلان ديار بيوتا إن شروع دي مدى الصومالية أي وضع لهايين إن لا إله اليوم أو أي إله لسه ديار بيوتا بوتلان ديار بأوتاي مال والبا إرجو صادري مدحوينها شوري فرماجي الشيخ شريف فكمدها جوجل بفيديو جرو وكفيديو أنت مدحوينه وادي دي هاي ما حق مقدر كلته بوتلان تذكر له شيء يكمد معها تذكر ليه هاي والله وفر الله فرسانة يكمد معها تذكر ليه هاي ومدحوينه من والبلية وين وضع هذا الأرض هو كلا أرتدون أنكر لكن أدق عسى كمد معها kuwan galmudug iyo koonfur galbeed diiday shirka uu qodbadan ka jeedinay in la fariistay iyaga naftirkooda maxaa diiday ma loo yeero ilaa hal maalin bay taymaadaan oo la dhamaysto la wada hadlay hadana guryahooda ku laaban karaan iyo shaqooyinkooda ay ku laaban karaan isla markaas ay laaban karaan diyaarad bay la raacayaan ma loo yeero la hadlo waxaan leeyahay marka waa khiyaali madaxweynuhu waxa uu ku hadlaya afkiisa iyo dhagihiisu isma maqalahayaan وخيالي ويه waxa uu ku sheekaynayo ee culimada iyo odayaasha iyo dadka ula shirey siyaasiyiinta ugu sheekaynayo waaqaca dhabta ma aha waa wax ka duwan weeye waa wuxuu rabo waxa weeye ugu sawir ha laga dhaho ha lagu maqlo ha laga sii sheego inta kaliya ayuu madaxweynuhu u rajeedaa sababtoo ah wax dana oo ugu jirto markii laga fiiriyo qanaanka uu ku socdo markii laga eego wax dana ugu jirto maamul goboleedyada inuu heshiis kula gala ma jiro sababtoo waxa uu wado dhan baa khalada oo sharciga balmarsan hadii marka wixii uu sharciga balmarsan yahay markii la soo fariisto waa laga garheelay waxa la dhigi war waxan iyo waxan ayaad ku xadgudubtay waxan iyo waxanna way ku saxay laakiin waxan iyo waxan ku leexo waxan iyo waxanna waa waxa isagu ka soo galo uu raadinayo marka dooni ma haya wada hadal inuu la kala marka hadduu maanta Saciid Adani soo fariistaan waa arinta koobaad ee looga bilaabo waxa weeye dastuurkii keen soo ku meel gaarayna lahayn soo Puntland iyada ma soo sameeynin soo heshiiskii Puntland lagu soo qoray ma ahayn ee ummadda Soomaaliya ay u dhanayd soo garawawan iyo garawato ma ahayn soo gaalkacyawan iyo gaalkacyato ma ahayn la kaari isagaas baa horey loo wadayaa ajandiyaasha sidaas loo sii ansixinaya wixii laga bedelayna bas baarlamaanka ka bedelaya taasaan ku soconaynaa waa qodobka koobaad oo Xasan Sheekh Maxamuud iska dhax arki maayo halkaasi waa qodobka labaad waxa lagu qabsanayaa xilalkan aad magacawday ee faraha badan ee qoyskiina bas aad ku shubtay 18 kan xil ee abgaal kaliya aad siisay soo celiyadana dalka wala wada leeyahay soo celi aynu waxa weeye wax wada qaybsi sax ah la imaado iyadana waa taas Xasan Sheekh Maxamuud dare ugu jirto waa qodobka saddexaad ee waxa lagu qabsanay corruption-ka iyo dhaqaalaha la boobayo hatta tii Puntland qoondada ay lahayd waa la boobay sanadka hore oo dhan uu cunay meel buu ku shubtay waxa la keen isla xisaabtan haye World Bank wuxuu bixiyay 3 bilyan buu bixiyo dollar haye MF waxay bixisay lacagta haye qaramada midoobay waxay bixisay inta haye midowga Afrika waxay midowga Yurub waxay bixiyeen inta haye sookan halka keen la kaalay baali la kaalay hadii la xagee lagu googi ila guriga lagu dhisto dibadda la geystay waa lagu ceeboobay iyadana marka wuxuu ka cararayaa isla xisaabtan kaas oo dhan buu ka cararayaa Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu doonayaa marka sidan u tahay inuu doorashada lagu gaaro doorashada isku caanasho waxa weeye iskugu shubo sida uu ku qaato taas uu doonaya inta basa ayuu waxa weeye u ordayaa dhaqaalihii uu hadhowto meelaha iskaga waxay lahaana uu haystay uu diyaarsaday qodobooyinkii maamul goboleedyadaas baa ku filan oo meel gaar ah ku shubtay marka isla xisaabtanka marka ma doonayo culimadii iyo dadka masaakiintu markay dooristaa wuxuu leeyahay wada jir baan doonaya midnaan doonayna kuma rabo ay leedahay kuma rabo hadaa is dhahnana oo iska horkeenana dalkeenu holaan buu ka dhacaya sidan uu yeelaya war waxba kama jiro ummadda Soomaaliyeed ha ku soonaato waxba kama jiro dalkeenu maanta badbaado u baahan yahay
maamul goboleedyadii Puntland waad aragteen horey bay la shaqeynba ma aysan yeelanin labada sano iyo barkay uu joogay banaankaas ay taagan tahay waraa wada hadal laga kari laayahay gogoshay garow la dhigay cali masaarka Saciid Cabdullaahi uu ku dhawaaqay waadida inuu imaado tii ka horeysay ee Sheekh Shariif iyo Farmaajo ay ballan qaadeen inay keenayaan oo wada hadashiinta ay dhaheen anaga inay wada hadashiinayna Xasan uu yiri waa diyaar waadiday inuu imaado dhammaan gogolihii garow ay fidiyeen ee reer Puntland ay fidiyeen waadiday Xasan Sheekh Maxamuud waxa hadda ugu sii darsaday galmudugna xiriirka u jirto waxay tiraan anaga shirkaan ama qusay shirarkii ka socday magaalada Muqdisho koonfur galbeedna xiriirka u jirto waxa kaliya micii maanta waa Axmed Madoobe oo isagana dantiisa ku ilaashanaya Madoobe baa jiray Hamza loo soo diray waxa la yiraahdaa Hamza Axmed Madoobe waa laba nin oo ilma adeer waa loo soo diray waxa la yiraahdaa Hamza Warad hatta soo xalin weydina adeerka ay xalinaysa orad in adeerka soo xalli bariyahana waxa socda meel walba oo wax ka taagan yahay kuwa loo diray yaa ilaahay gaad abud wax markay hubka boobeen yaa loo diray wasiirka amniga loo diray orad reerkiina hubka ka soo qaad وأنت حسن شيخ محمود وهذا سنة دولة نمو هي سيستم دولة أو جراي أو شقين ياي متشرو واحد سيستم دولة أو شقين متشرو بشو الصومالي وحال ربع مركا قفل بدين على وقبان كردالك الصومالي اللي قبل بعد ذكر إنه قبته قفل بد ماشى كجأدا إنه كقبته شنطنا الله شيء قبل دحوين حسن شيخ محمود يحكومة ديسة ليلا هذا ورواد فشلتين ومضى دافع سيد برلمان كوي شيئين يا أيدهن ورواد فشلتين ومضى هر دافع وفشلتين دل كان بدبادني كهور دقاقة تيبا مانت اللي ده هي الشعب الصومالي إنه بناك ولا رتين بقى مقدش معك صوت أضيع شباب القطمانية حوين كبار القطمانية عروت بار القطمانية أود بالسكواد إكسانية نوال بقى أنت كسهر ما تو بويا وقاضنية وبوب بارك كسهر بوب دولة لها جاتي هي السيستم لا ديسايس كده هي بوب بارك كسهر بوب كوحال ربع مضى الصومالي المركز كنا نعتي وسط جستلي لا دي دري كم يلا إنه وحال وضعنا ما قنعين وحاولنا وكمان نقنعين نما أنفعه ودليل كان سنة هنا أرضنا نضاف إلا إذا هذا اللي بهاي أو دوغ الله يسقط على الربع يسوي حندي كراب رنانتي سلام قمان في يوبان ده كراب سوت واحد ذلك أنا ما أنتكد عليه واحد قف كبني آدم كواقبل لها معها للمدحويناء وحسن أدي سؤال كل ما يسوي تلكون وكوبا بقى يوي هلو بهاي مركب بشر الصوماليات إن يسكننا وجسوا جلسنا إن الديار جرونو سيدك اللي بدبالي لها إن تاجرنا حل معنا ذا كسر كذا إلى ديتنا إلى أنت المية لنا إن تاجرنا قد يكون تاجرنا كوكرب استاجنا أيا لو بهاي